كم سهرنا من ليالي للصباح لا ننم، كم عراقيل كسرنا، كم حفظنا من رزم، كم جسور قد عبرنا، كم ذرفنا من حمم. نبتغي صيد المعالي، نبتغي رأس الهرم، نقضي ساعات طوال نستقي علم العجم، نستهين كل غال كي نحقق الحلم. إنسى إننا نبالي فلنسير للأمل، إن قمة الجبال تستحق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسودو عشر كيني أفراد PHP. In this lesson we will learn عشر كانوا حنكو برانتونا how to know version of PHP that you are downloading. PHP جي سو download كريسي version كيسو نوعو يهي سيداد جوغان لهين. markii hore PHP khaasa ma soo download karay, laakiin SAM server ayaan soo download karay. SAM server ka laftirkiisa ayuu PHP ku jira, waayo SAM laba P baa ku jira, P-da qabow, P-da waxaan jeedaa P-da hore ayuu PHP loo soo gaabiyay. marka PHP ga soo download karaysatay SAM server ka ku dhex jira version ku yahay sidaad ku ogaan lahayd. casharkeena ayaan ku baranaa. qodobka labaad waxa weeyaan how to write first code in PHP. sideebaad code-kaagii ugu horeeyay PHP ugu qoran lahayd. code-kii ugu horeeyay sideebaad PHP sidaad u qoraysaa. saddexaadna waxa weeyaan how to start and stop SAM server. sideebaad u bilaabaysaa una joojinaysaa SAM server-keena. haddaba aan eegno. soo furatid SAM-kaa soo download karaysay, laga yaabaa inaanad halkan aad ka weydid oo aad searchiga aad ka weydid. SAM haddaad ku qortid maynna waxaad tegaysaa folderkaagii CD baad tegaysaa, SAM baad ka dooranaysaa. SAM markaa ka dooratid hoos baa soo soconaysaa folder kaasaad laba jeer SAM control ayaa laba jeer taabanaysaa. bes laba jeer markaad taabatid kaas markaad doonaysid Apache oo server Kenya oo PHP gu noogu jira oo server Kenya start balansa kana start balansa stop way stage. bes markaa labadii portiyada isticmaalayeen ay halkan noogu soo baxaya. haddaba imika markaad sidaa usoo furatid waxaa qoraysaa localhost/dashboard. waa kanba intaasaad qoraysaa. save badanaysaa, enter baan ujeedaa ayaanaysaa enter markaad tiradid waxaa kusoo baxaysa halkaas ayaa kusoo baxaysa. haddaad ku dhufatid PHP information wuxuu kusoo saaraya macluumaadkii PHP. haddii aad ku dhufatid PHP admin wuxuu kusoo saaraya database-kaagi. markaa PHP info ayaad ku dhufanaysaa. PHP info markaa ku dhufatid kii ayaa kusoo baxaysa. imika markaad aragtid PHP waad arkaysaa PHP version waa 7.36 ayaan soo download karaysay. laga yaabaa inaa midhow adigu 7.456 midhow kolba kor buu sii kacay, laakiin anu kana imika soo download karaysay waa 7.3. waayey waa arkaysaa build-date-kii waxaa la dhisay 2019 bishii May 29 oo version-kii ugu dambeeyay. waxaana lagu dhisay compiler-ka waa Visual C++, waa 36 bit. server-ka waa Apache, waa enabled C Windows. halkuu ku jiraana waa PHP. SAM-ka PHP ugu sii jira. hoos u soo soco iska akhriso Apache server-kiisii waa kan. hoos haddaan usii socono calendar-kii waxta macluumaad dhan baa halkan ku jira. ayaa halkan ku jira. iminka Notepad++ keenii noo soo qabo oo ama editor-ka doonaysid aad isticmaalaysid soo furo. markaad soo furatid keenii noo soo baxay waxaad qoraysaa ka weyn ka yar baan jeedaa calaamad su'aal PHP
haddana waad xidhaysaa calaamad su-aal php. haddaba markii sida tahay iminka waxaan soo baratay waxaad soo baratay iminka html-kii baa soo baratay. html-ku wuxuu ahaa body, kaba soo qaad bodygaas waad xidhaysay bodygii waad xidhaysay, laakiin php wuu ka duwan yahay. php-gu waa language waxaad qoraysaa ka yartii oo soo xidhaysa calaamad su-aal php baa qoraysaa. ka koodhkeenii wuxuu intaas u dhaxaynayaa wixii halkaa la dhex geliyo waa koodhkii php. haddaba aan qorno, waxaad qoraysaa php info intaasun qoraado intaasun qor. waan sharaxi doonaa waxay tahay intana ay save dheh. waxaad ku save garaysanaysaa markaas htdocs waxaad kaga sii save garayn halkaas ayaad ku save garaynaysaa. waxaanaysaa kaba soo qaad lesson php halkanna php baad wayna file halkan ka doorataa php save baad odhanaysaa. marka sida u save garaysay oo arkaysaa inuu notepad-keeni markiiba ogaaday inay luqadani php tahay. inuu php tahay inuu ogaaday. marka aan chrome-keeni soo kicino, chrome-kii oo kaan soo kicinay. haddaba chrome-kii markaad chrome sida u joogta halkaas waxaad ku qoraysaa url-kii localhost baad ku qoraysaa. waxaad ku qoraysaa localhost space waxaa odhanaysaa backward slash marka waxaa qoraysaa magacii lesson wixii aad soo save garaysatay, filekii aad soo save garaysatay magaciisi. enter haddaan siino oo arkaysa warkii keliya aan qornay ee inta ahaa. iyo haddaad dashboardka tagtid kabacdina aad php info kasii tagtid, labadaba versionkoodii way kusoo baxayaan. marka maanta waxaan soo baranay sidaad versionka u ogaanaysid. koodhkii koowaad ee php sida loo qorana waan soo baranay. koodhkii koowaad ee php start iyo stop gareeyana waan soo baranay. halkaasaad ku dhufanaysaa stop, saasay u istaajinaysaa stop. iminka markaan sida labadiiba u istaajinay, labadiiba markaan istaajinay, iminka haddaad enter siisid, haddaad kaba soo qaad lesson-keeni intaas baad qortay. enter haddaad siisid shaqayn waayo waad stop garaysay, way istaajisay. marka cashirkeena intaas noogu joogaya. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi.